بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha aad iyo aad baan u salaamayaa meel kastoo ay dunida kaga nool yihiin. insha Allah barnaamijkeennii aynu hore uga soo hadli jirnay ahaa waxyaabaha ay ku jiraan dufanka xayawaanka laga sameeyo nooc doonaba ha ahaado. inta badan dufan xayawaan ma kala qaadaan iyagu, marka dufan xayawaan haddaad inta badan maqashid marka nooc walba uu lahaan karaa, khansiir buu lahaan karaa, bakayl uu lahaan karaa, allah almustacaan. wax allaali wixii marka xayawaan oo uu ka kooban yahay oo dhan dufankiisa ayuu markaa lahaan karaa. barnaamijkan walaalihii hore ula socday iyo kuwaan hore ula soconba waxaynu ka soo hadalnay nidhi alaabo badan oo ka mid yahay cabitaanku, oo ka mid tahay saabuunta weelka lagu meedho iminka aad arkaysaan, iyo saabuuno kale oo fara badan tan ma garanaysaa gacmaha lagu meedho marka suuliga la gelayo oo dhan. waxaas oo dhan waxaa ku jira ayaynu hore uga soo sheekaynay. dufan ayaa ku jira, marka dufankaas waxba kala qaadi mayno, laakiin dufan xayawaan ayaa ku jira. marka iyadu waxaa jirta calaamad baa jirta u cadaynaysa qofka in aan ma garanaysaa alaabtaasi aynu ku jirin wax dufan ah oo xayawaan ka yimid haba yaraatee. waxaana loogu talagalay dad dhowr malyan gaaraya qof oo ku nool wadanadan Yurub, diinta islaamka aan haysan laakiin diimo kala haysta, qaarkoodna hadday doonaanba aan diinba haysan, ayaa loogu talagalay alaabtan in ay isticmaalaan, maadaama oo iyagu ay yihiin qolooyinka la yidhaahdo vegan ama vegetarish la yidhaahdo, oo ka mamnuuca inay cunaan hilibka iyo dufanka iyo caanaha, waxaas oo dhan xayawaan ka yimaado oo dhan aan cunin ayaa loogu talagalay alaabtan. maadaama kuwa loogu talagalay aan cunin xayawaanka ama allah mustacaan dufanka iyo waxyaabaha la halmaa hilibka aan cunin, inaguna maadaama nahay dad muslimiin ah oo inta badan aynaan cunin xayawaanka ka yimid sida doofaarka oo kale, xayawaanadan la gowracin oo bisinka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu gowracin aynaan isticmaali karin ayaynu uga faa'iidaysanaynaa. marka insha Allah hadalkii oo kooban oo dhammaystiran waxaan kusoo koobayaa insha Allah fiidiyoyadii ama qoraaladii hore aan soo dhigay page-kayga ah xisaabi naftaada intaan la xisaabin. dad badan baa ka keenay ma garanaysaa su'aalo ama qaarkood ba fahmi waayeyba, marka iminku maadaama qoraalkii inta badan su'aalo laga keenay ama la fahmi waayey ayaa waxaan door biday inaan iyagoo muuqaala insha Allah aan idila wadaago haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka raan noqdo. sharaabkan hadda aad arkaysaan waa cola, waxaa ma garanaysaa lagu iibiyaa dukaanka la yidhaahdo noormaha. haddaynu isnahno alaabta uu ku jiro khansiirku ama waxyaabahaas dufan ka hadla aad iyo aad bay inoogu tiro badanayaan, marka waan soo koobaynaa insha allahu. sharaabkan marka calaamadaas iminka aad arkaysaan taas ayaa ku sawiran. calaamadaasi waa caleen oo ma garanaysaa saas ah, iyo hoosena waxaa kaga qoran vegan oo loo soo gaabiyey vegetarish. marka vegetarish ayaa loo soo gaabiyey dadka iyagu dufanka xoolaha ama dufanka xayawaanka aan isticmaalin ayaa loogu talagalay. marka sharaabka aan calaamada lahayn inta badan qaacidada kooban baan siinaya insha Allah. sharaabka aan calaamada isagu lahayn waxa ku jira dufan xayawaan. marka qaacidadaas ayaan insha Allah idin siinaya haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raan noqdo. calaamadii wataa mar labaad. sharaabka koolada iyadu intaas ayaanu kaga baxaynaa. waxaan soo qaadayaa iminkana sharaabkaas oo Soomaalida wadanka Jarmalka ku nool aad iyo aad u yaqaanaan una isticmaalaan. halkan sharaabka noocana laga sameeyo khudradda laba qaacido ayuu isagu leeyahay. qaacidada labaad waa haddii aad aragto 100% in laga sameeyey fruit, waxa way u badan tahay alaabta lagu iibiyo liidalka oo kale sidaas ay u badan yihiin, 100% ayaa ku qoran fruit ayaa laga sameeyey. dukaanada qaar way isku daraan oo waatan calaamadii aan idiin sheegayay veganka ahayd caleentuna wadatay. dukaanka lagu iibiyana waa kaas oo dukaanka noormada ayaa la yiraahdaa, laakiin isagu aldigu calaamada dambe imka aan ka hadlaynay ma laha, laakiin kan uu leeyahay. mar haddaad 100% aad aragtid fruit, iyaduna waxa weeye xayawaan kuma jiraan, wax kale kuma jiraan. waxaan rabaa kale inaan ku daro sharaabka noocan oo kale inta badan calaamadaas leh ama alaabta calaamadaas aynu ka soo sheekaynay leh aad iyo aad bay inta badan uga qaalisan yihiin alaabta caadiga. hadda kani markuuna ahayn 100% ama vegankaas uu wadan 75 ama 70 miya ama 65 senti baa la siiyaa, laakiin markuu calaamadan wato waa 1 euro oo buura weeye. marka dadka qaar in saa loo kala fahmo ayaa wanaagsan. alaab kasta oo calaamada wadato
waxa weeye xoogaa way ka yara qaalisan tahay alaabta caadiga ah marka wax naflo badan oo saasana kama qaalisana inaad wax xalaalo cunto ayaa wax walba ma garanaysaa la siisan karaa oo ma garanaysaa loo hori karaa ayaa ka wanaagsan inaad wax rakhis oo oodan hubin aad cuntid saabuuntan waa saabuuntii lagu meedhayay alaabta ama suxuunta weelka maacuunta ninba siduu u yaqaano waxaa iibiyo dukaanka la yidhaahdo DM-ka Rossmann-ka waa laga helaa marka shirkadda ay tahay shirkadday doonta ha lahaato shirkaduhu way kala qaalisan yihiin tan oo kale imika waa qaali weeye shirkadday doontaba ha ahaato adigu waxba ma garanaysaa shirkad ha u eegin laakiin qaacidada aad raacaysid walaal waxay tahay waa calaamadaas weeye aan hore uga soo sheekeynay oo ah vegan iyo calaamada caleenta ku dhaxta caleenna way ku dhex taallaa marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay dhir baa dufan looga dhigay marka shay kasta oo calaamadaas ay wadato xayawaan dufankii kuma jirto way hadalkii oo kooban waxaa ku jira dufan geedo ama ma garanaysaa caleen ayaa ku jirta marka wataas ta gacmaha lagu meedho iyaduna ay suuliga ma garanaysaa loogu talagalay iyaduna calaamadaas ayay leedahay DM-ka iyo Rossmann-ka ayaa laga helaa marka walaalaha insha Allah intaas ayaan la wadaagay insha Allah wixii su'aalo kale aad qabtaan insha Allah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raal noqdo page-kayga ayaad iigu soo qori doontaan anna waan idinkaga soo jawaabi doonaa insha Allah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi